kulankani waa mid caasho sharaf isla markaana taageero loogu muujinayay iyo dhiirigelinba wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale duur ayaa ka qabsamay hotel Ramad ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland gudoomiyaha golaha deegaanka ee Burco qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Burco barsaab ku xigeenka hore ee gobolka Togdheer salaadiinta cuqaasha waxqaradka aqoon-yahanada iyo dhalinyarada beesha deegaanka galbeedka Burco ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay xildhibaan Jaamac Xasan Aadan oo ka socday golaha baarlamaanka Somaliland isagoo ka warbixiyay ujeedada shirkan isla markaana hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo go'aanka geesinimada leh ee uu kula dhiiraday Maxamed Nuur Carraale inuu magacaabo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Nuur Carraale ay taageero halkan uga dirayno inagoo aanu wasiirku Somaliland uu soo yahay haddana gobolada ku soo jeedo inagoo naga dhashay ay taageerayno markuu ka soo jeedo gobolada halkuu ka soo jeeda taageeraha isato ay Somaliland kala taageerada isteesinaysa uma hal celinaynaa ولا تجربة سوماليا سيسيانيو وسووا مقعابي وبيتها كتسم بيشا وسعردا بلارا guriyada daahir samatar barsaab ku xigeenka hore ee gobolka Togdheer iyo Maxamed Dirir Xayd oo ka socday xildhibaanada golaha deegaanka ee Burco ayaa ku amaanay madaxweynaha magacaabista wasiirka cusub isagoo kula dardaarmay wasiirka cusubna inuu xilkiisa Ilaahay u fududeeyo waxa sidoo kale munaasabadani kaga xog warameen taariikhdii wasiirkan cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waa hambalyo waa taageero intaan Nuur Carraale waa waxaanu kaloo hambalyeynayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland runtii qoladayadii udub ee xilka laga helay waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha oo ka saaray si xisbiyeysan in xilalka loo helo ama loo qaato oo ku fakeray cid alla ciddii dalka iyo dadka ugu qabanaysa ama xil qaban karaysa xisbigu doonaha ku abtirsadee inuu xilalka u yimaado ummadda loogu shaqaynayo waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay Maxamed Nuur Carraale xildhibaan ka soo baxay udubku ahaa kursiguna ka degayna kulmiye lama qaadan u cid lama qaadan udubba qaadatay sidaa awgeed hambalyo waad mahadsantahay kabeel ahaan baynu ku joogno nooc kastaynu nahayba waxaa inagu waajibaa qofka marka aynu garbihiisa taagan ee la shaqayno ee soo dhaweyno ee xilka isku garab taagno aynaan ka daba hadal ayuu asna wax noqonayaa ummadda Somaliland u shaqaynayana wax gaarsiinaya anigii guuleedkan ka hadlayay kuraasida madaxweyne waxaan ku hambalyeynaa shirka ciidamada booliisku dib noogu soo celiyay iyo wasiirka arrimaha gudaha kii u weynaa ah oo maanta noo dhiibay waxaan leenahay asigana aad baan ugu mahadnaqaynaa ka xisbaan waana kula shaqaynaynaa waana la shaqaynay ninka loo magacaabay waana kula soconaynaa uqaashiya salaadiintii ganacsatada iyo waxgaradkii kale iyaguna munaasabadani ka hadlay ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha Somaliland iyagoona wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Carraale duur kula dardaarmay inuu sameeyo cadaalad isla markaana magac kaga tago xilkan loo igmaday oo ah xil baaxad leh madaxweynaha farxiin من كسبوا قلمنا هذا يسمح كل شيء رجعنا تدولة هجاء وهيا أنت يحسب إلى الرشدية روح كلية حقوا نقطة ثانية أولي عدالته أدوك لو تكتب المرعى ونكسر ونكسر أي الإله وقبلنا إلى تاريخ الغمار تروحها حلوان كصوب حي أضو شرعي وكذب حالا وشنين ما تم مكبحة ولدي ننكل بيه يعطينه يرعى رضيه ويدي الله يرشقيه ده وروحهم بها حلوان رضي بيهبوا يرعى رضيه ولا كل بيه ولا شقيه هذا يسوسي ديبنا تازوات
gudoomiyaha golaha deegaanka ee burco master maxamuud axmed xasan dheglaab oo isaguna soo gunaanaday hadalkan ayaa shaaca ka qaaday in wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Kaboose kaga tagay ceeb la'aan loona baahan yahay in wasiirkani sameeyo dadaal karti go'aan qaadasho iyo ka foojignaan maadaama ay wasaaradani tahay mid baaxad weyn isla markaana dalka oo dhan gees ka howlgasha wasaaraddan guriga wasaaradda culus ma aha wasaaradaha kale nabadgelyada ilaa loo yaato ilaa garax lagu delo inta udhaxaysa ayaa habeen walba lagaa doonaya iyo waaberiyeyba waxa ka socda iyo nabadgelyadeeda waa hawl aada culus waa hawl ballaaran waa hawl soo jeed badan u baahan wasiir kastana uu ku dhibaatooda nin adagu waan ka baxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha faagtaaablaanba kuga jira si wacan baana uga shaqeeyey si adagna uu uga baxay go-aankaa uu qaatayna weysihiisa kale ceebka dhaliisoo kuma lahayn koodii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu digreeto madaxweyne ku magacaabis ku sameeyay Maxamed Nuur Caraale inuu noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland munaasabadani xalay lagu qabtay hotel Ramada ee magaalada Burco ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee taageero loogu muujiyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Dur Cabsaq Faarax Abdullaahi Cabsan Kruma shabakada caalamiga ah ee Burco online magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco.